بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان walaalada meel kasta joogaan luqadan ku hadlo waa salaamaya salaan kadib su'aal aad iyo aad u culus oo soo laabatay dad badanna ay isla dhex wareegayaan ayaantan muddo horena dhici jirtayba oo wax hadda cusubna aan ahayn laakiin hadda un lasoo cusboonaysiin maadaama baraha bulshada ay aada uga xiriirto hadda ay aada u faafeen su-aashaas oo ah in ay dadka qaar ay rumaysan yihiin ama aaminsan yihiin bishan shacbaanko in ay geerida aada iyo aada u fara badato oy bilaha kale ay ka geeri badan tahay ayay aaminsan yihiin arrintaas maxaa ka jiro ayaan rabnaa insha allahu tacaala wixii ka jiro inaan sheegno ma siday wax ay u sheegeen bay wax u jiraan mase way ka duwan tahay waxaan leenahay arrintaas asal ahaan wax ka jira ma laha marka labaad waxaan leenahay waaba arrin khatar ah oo baasaysi wey oo in macnaha bilaha ilaahay uu abuuray subxaana wa tacaala uu leeyahay kamid ah la baasaysta weeye arrinta noocaas ah mana sharcigeennana wax ku bannaan ma aha inay sharcigeenu ku sugnaato iskaba dhaafa sharcigeenu uu naga reebay waxaan leenahay marka koowaad bisha shacbaan bilaha kale ay lamid tahay waxay kaga duwanta ma laha wax gooni ah oo ku soo arooray in bishaan geerida ay badan tahay ma jiraan bilaha kale unbay lamid tahay qofkii macnaha waxa weeyaan xilligiisa la gaaro ee malikumood u yimaado waqtigiisa iyo ajashiisa adduunyadan ay kaga dhammaato bil allah bishii loogu talagalay iyo saacaddii loogu talagalay iyo xilliga loogu talagalay ayuu geeroonaya wax gooni ku ah bisha shacbaan oo shareecadeenna ay sheegtay ma jiraan waxyaalaha marka haddaba laysla dhex wareegayo ma aha wax hadda cusub ee waa wax horey u jiri culimadana horey ay uga hadleen soomaalidu qaarkood waxaan ka maqli jiray bishan shacbaanka markay 15 tahay waxay u yaqaanaan leylatul xukm bay u yaqaanaan waa habeenka dadka la kala xukumo qaar badanna geeri lagu xukumo qaar badanna haddee noolo loo xukumo ayay macnaha waxaway ku sheegaan arrintaasna sax ma aha waa arrin qalad ah waana been abuur weeye siday culimada ku sheegeen habeenka wax la kala xukumo dunidoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala la kala xukumo waxaa weye leylatul qadri wey oo ramadaanka ku jirto weeye siduu ilahay qur-aanku ku sheegay subxaana wa tacaala ina anzalnaahu fi leylati lqadri leylatu lqadri khayru min alfi shahrin habeenkan wax walba la jaangooyo waa leylatu lqadri dadka qaarkood oo markaa ku sheegeen inay tahay habeenka shacbaanka uu 15 marayo ayay culimadu radiyeen culimada radisay waxaa ka mid ahay sheekha la dhihi jiray ibn alcarabi almaliki oo ka mid ah culimadii qarniga 6aad joogay 543 ayuu geeriyooday kitaab uu leeyahay oo la yidhaha axkaamu lqur'aan ayuu kaga hadlay mas'aladan wuxuu leeyahay qofkii sheegto leylatu lqadri inayna ahayn habeenka wax la kala xukumo faqad acdama alfiryata cala allah ilaahay buu ku been abuurtay buu leeyahy been abuurka ilaahay subxaana wa tacala qofka u geystay aad iyo aad buu u weynay markaasuu wuxuu yidhi walaysa fii leylati nisfi min shacbaan xadiidun yucawalu calayhi leylatu shacbaan habeenka ay marayso bisha shacbaan habeenka ay 15 marayso wax xadiid oo la cuskan karo oo ku yimaada ma laha walaa fii nasqi alaajaal buu yidhi fiiha iyo in macnaha dadka aajaashooda iyo waqtiga ay dhimanayaan wax laga bedelayo ama qaar badan ay dhimanayaan wax ku ansaxay ma laho falaa taltafituu ilayha ha milacsanini buu yidhi waxaas waqtina ha ku dhuminina hana dhegaysanina marka waxaan leenahay siduu sheekhaas iyo culimada kaleba ay ka hadleen wax ku soo arooray oo shareecadeenna ku yimid oo sax oo sugan oo la qaadan karo in ay bisha shacbaan ay badan tahay geerida ma jiraan taa horta muslimiintu waa inay ku baraarugaan haddii aan tusaale ahaan soo qaadan waxyaalaha la wariyo ee la sheego dadka qaarkoodna ay isla dhex maraan su-aalahana ay ka yimaadeen waxaa ka mid ah waxa ay xadiid ku sheegeen xadiidna ma aha oo dhahayo fii leylati nisfi min shacbaan yuuxi illaahu ilaa malaki lmowti biqabdi kulli nafsin yuriidu qabdaha fi tilka sana ilaahay subxaanahu wa tacaala bisha shacbaan markay kala marayso malaku mowdkiibuu ilaahay la hadlayo u waxyoonaya wuxuuna farayaa naf kasta oo sanadka inay dhimato loogu talagalay inuu nafta ka qaado waxyaalahaas marka ay waxba ka jirin oo been abuur ah
ayaa marka sababay inay dadka waxyaalaha noocaas ay aaminaan ayaa sababay. waxyaalo badan baa marka sabab u noqday. waxaa ka mid ah aahaartaas la wari ayaa sabab u noqday inay dadka waxyaalaha kala dhexlaan. waxaa ka mid ah walaalayaal waxyaalaha kale oo sabab ugu noqday inay dadka waxyaalaha qaarkaas ay kala wariyaan, inay dadka qaarkood maxaa la yidhaahaa baasaysi wax la yidhaha ay rumaysan yihiin in makhluuqaadka ilaahay subxaana wa tacaala qayba ka mid la baasaysto. bilaha qaarkood in la baasaysto la yidhaha bishaan lama aroosi karo, bishaan qur-aan lama akhrisan karo, bishaan safar lama geli karo. sanadaha qaarkood in la yidhaha sanadkan waa sanad xuno, waxyaalaha noocaas lama samayn karo. ayaamaha iyo maalmaha qaarkood inay baasaystaan oy dhahaan maalintan waa maalin madow, maalintan maxaa la yidhaha xoolo lama qalo, maalintan dad meel laguma kulmiyo. habeenada qaarkood inay baasaystaan. waxyaalahaasoo dhan dad aaminsan ayaa jiro. dadkaasna in badan bay arrintaas ay buunbuuniyeen oo marka ay keentay. marka gabagabadii aan su-aashan kaga baxayna waxaa weye jawaabteedu waxaaba yaraata ku yimid walaa nebiga calayhi salaatu salaam ka sugnaaday, walaa saxaabadiisa ka sugnaaday, walaa culimmada islaamka ka sugnaaday oo sheegaya in bisha shacbaanka ay geerida dhexdeeda badan tahay ma jiraan wey. saas daraaddeed marka insha allahu tacaala in arrintaas dadka wadina ay ka daawoobaan, macnaha aan lagu sirmin. taasaan marka insha allah walaalada kula dardaarmaynaa. diinteenna inta ay sheegto saxda ah ayaaba meel walba yeeloon ee aan barashadoodii iyo ogaashadoodii aan kari la-nahay. wax aan marka diinteenna asali raad ku lahayn, diintana ay macnaha waxa weye kaba soo horjoodo oo ilaahay lagu been abuurtana ay ka dhalanayso in la faafiyo, laiswaweydiiyo, wax run loo qaato. taas waa nasiib darri baan leenahay. hada wabillahi towfiiq. sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam.